gorgor marka waxay tahay ciidamada ugu qiimaha badan ee ay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku faanto ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ma jiro dal micno leh adduunka oo aan lahayn ciidan difaaca haddii uusan dalku lahayn ciidan difaaca oo dhiigooda u hura weligiis dal noqon maayo weligiis ma istaagayo weligiis dal micno lama noqonayo difaacayaasha dalka oo aad idinku kow ka tihiin ood ugu horraysaan adduunka meel kastoo la joogo dal kastaayba wuxuu dal ku yahay ku seexdaa lagu ixtiraamaa haybad lagu siiyaa looga cabsadaa qiimo iyo karaamo uu ku leeyahay waa xooggiisa dalka waa ciidankiisa waa militarigiisa especially markii hoos loo sii dhaadhaco ayaga ayaa waxay u taagan yihiin dhamacda iyo xabadda ayaga ayaa waxay mar walba u taagan yihiin dhaxanta ayaga ayaa u baahda oo u gaajooda ayaga ayaa u soo jeeda oo hurdada uga taga ayaga ayaan meel la ka cabsanin sidii hadda aad idinkuba halkudhegyadii muhiimka ahayd hadda qaadayseen ka muuqata waxaa waaye qiimaha ay leeyihiin waa dadka noocaasa waaye oo dalku uu ku taagan yahay hooyo kasta oday kasta ilmo kasta oo ama jiifa ama wax baranaya ama si nabadgelyo ah magaaladiisa u fadhiya ama si karaamo leh adduunka u ixtiraamayo waxaa ka dambeeya oo saldhig u ah idinka ayaa ka dambeeya oo saldhig u ah dal kastana waa sidaa adduunka oo dhanna waa sidaa dalku markii uu idinku hadda waxaad ku dhimanaysaan ood ku shahiidaysaan ood ku dhaawacmaysaan ood ku gaajoonaysaan waddankiinni ood caday ka difaacaysaan qofku markuu ku soo biiraayo ciidamadan xoogga dalka Soomaaliyeed qof kasta ma ciidan mu noqon karaa qof kasta gorgor ma noqon karaa qof kasta gorgor ma noqon karo qof kasta markuu ku soo biirayay oo ciidanka ku soo biirayo idinkeeda ka mid ah shuruudaa laga soo buuxiyey soo maa foom baa laga buuxiyey waa la soo imtixaanay waa soo fadhiistay kuwa badan oo walaaladiisa oo saaxiibbadiisa ayaan fursaddaas helin soo maa oo meesha ka noqday number one waxaad ogtihiin military ma noqon karo qof akhlaaqiyan akhlaaq liita oo ebera way adag tahay inuu ka mid noqdo waxaasoo dhan ka sii muhiimsan qof fulay ah ciidan maba soo doontaba xero fulay ma aha meeshan qof dhimasho ka cabsaday oo dhaawaca ka cabsanaya meeshan ma soo aado sidiisaba wuxuu ilaahay yidhi in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna sidoodaba dadka mu'miniinta ah xoolahooda iyo nafyaalkooda waa laga iibsaday ilaahay bay ka iibsadeen waxayna ku beddesheen janno dagaalku mar hadduu xaq yahay mar hadduu jihaad yahay qofku naftiisa wuu gaday ilaahay buu ka iibsaday wuxuuna kaga iibsaday janno ilaahay janna si tanna qaado maxay sameeyaan marka yuqaatiluuna fii sabiili illah jidkii ilahay bay ku dagaalamaan deedna maxaa dhacaya fayaqtuluun wa yuqtaluun markaasay wax dilayaan ayagana waa la dilayaa lama dhihin waxun bay dilayaan keliya laakiin waxaa la yidhi fayaqtuluun way dilayaan ayagaa dilaya wa yuqtaluuna ayagana waa la laynaya oo waa la dilaya inay sidaas tahay waxaad ku garan jeyshkii ugu qiimaha badnaa waxaa hoggaamiyey nebi maxamed alayh isalatu wasalaam soo saas maaha beder buu hoggaamiyey waxaad ogtihiin 70 baa laga dilay gaaladii 70 waa laga soo qafaashay
isla macrakadii ku labayd ee ku xigtay dagaalkii ku xigaysa Uhud ma ahayn Uhud baa la tegey Uhud oo waliba muslimiintu intay soo guuleysteen markii hore dadkii aan ka qayb galin dagaalka aad u xiisaysanaayeen dhalinyaro u badan si xoog loo galay marka dadkii waxaad ku garanaysaa nabigu wuxuu codsaday war magaaladan ku dagaalamaynaa difaacan xiranno ayuuna waxay dhahay uu kari waayay waxa la yidhi maya banaanka u baxayna rasuulka ilaahay ma sugayna waxaan banaanka ku doonayna jabal Uhud la tagay nabiga qorshihii waa dajiyay laakiin jab baa dhacay saxaabadii 70 saxaabi baa la dilay shalay fayuqtaluun bay haayeen ayaga fayaqtuluuna shalay bay laayeen laakiin maalintii dambe markii hore ayagu hajabiyaanba laakiin markii dambe jab baa dhacay saxaabadii 70 baa laga dilay aagina waa laga qabsaday meeshii 70 baa laga dilay sababtuna way iska cadayd oo markii ciidan leeyahay sababta kaliya oo jabku u dhaco inta faraha badan waa khalad dhaca oo ama hoggaanka ka dhaca ama askariga ka dhaca ayaa khalad keena jabka keena inta faraha badan waxyaabaha hadda aad wada dareemaysaan waxyaabaha hadda aynu aragno waxaasoo dhan waxaa waaye qul huwa min cindi anfusikum waaye xaggeenna unbu ka imaada meel kale kama imaan ama askari amar qaadan waaye ama taliye khaldamay oo kor ka amar qaadan waaye ama sarkaal si khalada wax u isticmaalay qalad baa dhacay meel buu ka dhacay laakiin ciidanku waa sidiis geesinimadu waa iyagii un waxay yihiin waa la yaqaanaa goor maan isu tilmaamaynaa sanad baan ku soo jirnaa dagaalkan waxaan ognahay in laga keenay xamar iyo firfira laga soo bilaabay dagaalka maalintii hore aan halkan imid anigu geed meeshaan ku yaalla hoostiis xabaddu halkan ay ka dhacaysay geed meeshaan ku yaalla hoostiis waxaan kula kulmay macawisley ka timid firfir agteeda dagaal ka soo bilowday oo uu guddoomiyaha maxaas hogaaminayo oo ilaa xilligaas soo socday oo soo lugaynayay oo dagaal ku soo jiray yaa hor socday yaa u jebinaya ciidanka yaa waday gorgor bay ahaayeen iyo danab iyo ciidamada kale xoogga dalka Soomaaliyeed intii laakiin asaal waxay ahaayeen ragga ku go'ay ee ku wada shahiiday ee ku maqan waxay ahaayeen gorgor iyo waxay ahaayeen maxaa ku dhaca danab badankooda ayay ahaayeen waxaa ku maqan oo ogtihiin shuhada badan oo odayaal leh odayaal dhaqameedkeen sharafta lahaa ayaa ku maqan oo meeshaas ku soo shahiiday dhinacan waxaad ogtihiin xamar ayaa laga imaaday xabadda waxay ka soo bilaabatay balcad ay ka soo bilaabatay webiga ilaa Indian Ocean inta u dhaxaysa ayaa la soo xaaqay oo soo xaaqdeen tobanaan shuhada ayaa naga shahiiday meeshaas oo ku dhimatay bilaash kuma imaan laguma imaan caws weyn bilaash laguma tagin intaasoo dhan aad soo shahiidaysa tacabkiistaa soo galay shuhadadii waxaasoo raggii soo shahiiday raggii shaqadaa soo qabtay ma qabato in magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo magacooda magaciina in fitna wala kow ah ama laba ah oo micno lahayn inuu ku ciyaaro lama aqbali karo cid aqbali karta malaha lama aqbali karo ciddii ka dambaysay waa lala xisaabtami qofka dalka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya ku doona ahaado hadduu sargaal yahay waa lala xisaabtami waa lala xisaabtamaa magac dil lama ogola sharaf dil raggiis gorgor iyo ragga la midka ah oo waxaan ogaan soo dhigay oo la og yahay oo cadowgu yaqaanaan oo cabsiday ka qabaan ilaahay weyna waaxid og yahay oo kuwa xalay la iga warramayay ay isagu cabsanayaan in magacooda la dilo in fitna lagu dhex abuuro in huuhaa la dhex geliyo no dareenkiinaan qabnaa inta aad duurka jiiftanaan ognahay inta aad dhib idinku soo dhacaan fahamsannahay waa idinka damqanaynaa saaad u qiimo badantiinaan ognahay geesinimada idinku jirtaan ogahay waa meeshaan xilligii dallacaaddaa la joogaa xilligii wax laydiin qaban lahaa baad joogtaan
xilligii laydin karaamayn lahaa baad joogtaan xilligii raggu kala bixi lahaa baa la joogaa sideedaba rag markay baashu kharaaraato isma raaco waad ogtihiin فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم من نهر طالوت والله يقنا سوما نبيقاس إذا راعي عمالقة نمن اللي هذول لو قلي واي وبيت المقدس حيسته أيا وحولوا الله صوتك الله من أين كان إن مريال وصوت ضيع إذا عيدة كبر مركي نحن اللي تشوقه أياكو آذو أومن وآذو رفاتسن أيا وحول دقيسته إلهي ويدن امتحاني امتحان baa la isgelinayaa imtixaanku waxa weeye waana oomanahay tacbaanna waa nahay laakiin halkan horteena webi baa ku yaal webi baalka muxuu ahaa tog biyo maraan oo biyuhu qulqulayaan ku yaala halkan waa sii maraynaa qofkii biyahaas ka caba ima raacayo hala socdo haddaba waxaa la fiirinayaa wax la yidhaahdo indibaadiyada iyo qofka siduu naftiisa u controlo because military qofka askariga dadka kale wuxuu kaga bedelan yahay naftiisu ka adag yahay istaag waa istaaga naso waa nasana meeshan gal waa gala uu ka duwaya dadka kale lamid maaha marka wuxuu rabaa ciidan aan sidaa u habaysnayn oo saa isu dhageysanayn wuxuu aaminsan yahay inuu isku haleyn karin markii cadawga la tago marka wuxuu rabaa inuu ogaado yaa dagaalami doona yaase dagaalami doonin wuxuu dhageysta waa la idin imtixaana webigaana la maraa waa taliyihii guud qofkii biyaha caba oon bayna tacbaan yihiin aniga ima raacaayo hala socdo allaahumma in hal qofo hal baa lagu ogolyahay gacanta hal marsaa dheh fiiqs bas mar damba ku celi karti intaasaa la ogolyahay waman lam yadcamhu fa innahu minii qofkaan cabinu baa raacay maxaa dhacay fasharibuu minhu ilaa qaliilan markii meeshii la tegey biyihii waa la isku jeexay in yar maahane waxoogaa yaraa ka soo hartay intii kale biyihii bay ka buuxsamay calooshii intay wada fuurtay oo ilaahay fuuriyey ayaa wax dhaqaaqab la waayay iyadana wuxuu orday iga noqda calooshii waa wada fuurtay intii kalaa soo raacday waxay u yimaadeen meeshii ciidanka oo laba ciidan oon isu dhigmin ciidan kumanaan ah iyo waxoogaagoodii oo yaraa ayaa meesha durba qaar baa niyad jabay markaasay waxay yidhaahdeen waxaa waaye lama dagaalami karno meesha lama dagaalami karno haddana maxaa dhacday wuxuu yidhi marka intii aan ila socon karin oon dagaalami karin way iska noqon qayb baa waxay dhaheen maya waan dagaalamaynaa kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan katiira imisaa qolo xoog ciidda ka badan ay koox yari ka adkaatay annaguna kooxdii yarayd inaan nahaan rajaynaynaa waa dagaalka waa gelaynaa dagaalkii baa la galay kooxdii yarayd baa raysay ninkii ugu weynaa yaa dilay nabiyullaahi daa'uud oo wiil yar ahaa oo askarta ku jiray baa dilay wa qatala daawuudu jaaluut marka halkaasay ku dhammaatay macrakadii waxaana adkaaday taaluud baa adkaaday iyo waxogaagiisa yaraa la socday baa adkaaday markay bahasha dhabta gaadho waa la kala harayaa markaad imanayseen ood ciidanka aad noqoteen waad soo dhaarateen soo ma qof kasta ilaahay buu ku soo dhaartay wuxuu ku soo dhaartay ilaa dhibicdayda dhiiggaa ugu dambaysa ay dhulka ku dhacayso calankaanaan saa u haynaya calankii sharaftiisii iyo hagoogtiisii dhibicda waxaad garanaysaa waxaad diyaar u tihiin duruufta ugu adag xataa asagoo qofkii dhaawaca oo dhiiggiis ka da'ayo oo tacbaana inuu diriraayo ku soo dhaartay oo dagaalamayo oo uusan dhaqaaqayn laakiin saan sheegay khaladku waa dhacaa wuxuu ka dhacayaa saxaabadiibu ka soo dhacay ilaahayna markiiba uu abaalmariyey oo waa la jabshay laakiin markiiba maysan cararina buurta xagga intay fuuleen ayay dib isu habeeyeen dib isu habeyn munaafiqiintii keliya ka tagtay oo carartay oo madiine ka gashay laakiin dadkii muslimiintaha waa diidan inay noqdaan markiiba way is habeeyeen innaga maanta meel laga tago lama joogo laakiin haddana waxaan qabaa in ciidanka sida uu la yaqaano aan qayb keligeed lagu sii dayn weligeed ee askarigu nasto
oo mar dagaalka galo oo mar soo nasto oo mar dagaalka galo aadaa laydinku hawan yahay aadaa laydin jecel yahay xoogga dalka soomaaliyeed aadaa loo jecel yahay waxay la tahay dhammaanteen waxaa inoo taalla oon maanta u imid anigu inaan idaan soo dhowaada wiilashayna sharafta leh geesiyaal baa tihiin waa idinka mahad celinaynaa sidaad waddankaan u difaacdeen waxaad ugu tagteen cadowga saad usii burinayseen ayaad darbigii ugu dambeeyey ku geyseen meeshii ugu dambaysay ayaad ku geyseen marka waxa dhimanna waan ognahay tiradooda la yaqaan waxay yihiin aan la yaqaan marka waxaa sharaf ah runtii karaamo ah inay meel walba laga yimid meel walba ciidamadan ay ka soo baxeen aan joogno meel kasta laakiin aagaggii yaryaraay oo haddeertan la soo baneeyena insha allahu tacaala waa la buuxinayaa wax alla wixii qaldamayna waa la saxayaa kuwa lagu tashanaayo inaad tihiin kuwa dalka sharaftiisa haya inaadna haysaan ood qabateen ood ka adkaateenna waa idiin sheegaa dalkan wuu xoroobayaa meel looga laabta ma leh xorriimaddii 60kii aan qaadannay gadaal buu cadow ka xuni ka qabsaday waana kan maanta jooga waa in markaan xorayno waxaadna ogaataan xilligaa laga soo bilaabo rag baa xoreeyey gabdhaa xoreeyey oo naftoodii u huray oo hebello iyo heble leh oo taallooyinkooda aragteen oo sharaftoodii aad aragteen ayagoo ama dhagax tuuraya ama xabad ridaya ayay dhinteen way ku shahiideen magac iyo sharaf iyo karaamo ayayna ka qaadeen karaamadii aan marka idinku yeerayna rijaalun ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuu ka hadlay yacni sida dadku ay dagaalka ay u jeclaayeen saxaabadii iyo say geesiyaal u ahaayeen anas binu nadar nin la yidhahdaa miitaal u soo qaadana oo uxud timirtaa yarta ah haddaan dhinto oon dagaalkan ku dhinto janno ma gelayaa haa waan gelayaa hadday saas tahay 3 xabadood timirtaa intaan dhammaysanaya inaan sii noolaadaay wallaahi waa cumri dheer u dhahay waana tuuray horuu ka galay dagaalkii waana shahiiday qur'aan baa ku soo degay min almu'miniina rijaal dadka mu'miniinta waxaa ku jira rag marka la leeyahay waxay ku tusinaysaa waxa la galay inay tahay wax aad u adag oo ayna sahlanayn qof walba ma samayn karo rag oo dhan magaca rag kama wadaha qur'aanku rag wuxuu u yaqaanaa ragga ah ee geesiyaalka ah ee dabka gal u yaqaanaa marka min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadullaha calayh waxay rumeeyeen waxay ilaahay kula ballameen marka way ku shahiiday haddana qur'aanku saas uu ammaanay annagana kuwa badan oo sidaasoo kale ah jirood og tihiin oo saaxiibadiin ah kuwa badan ayaa ku dhaawacmay kuwa badanna waa ku shahiideen maanta dariiqaas inaan ka leexanno oon dib uga laabanno oon waxoogaa cadow ah oo khawaarij ah waddankeenna aan u dayno maynala saxsan tahay mise waa qaldan tahay diyaar ma u nahay waddankeena inaan difaacanno diyaar ma u nahay dalka inaan difaacanno waad difaacaysaan waadna difaacdeen geesiyaal sharaf laa tihiin karaamaad leedihiin qiimaad leedihiin taliyayaashiinni baa idin jooga sidaan sheegay waaye ma jiro jujuub ma jiro canaan ma jirto waxaa waaye culays ma jiro saraakiishiinina waa joogtaa waxaan runtii oo iyadana karaamo ah oo aan rabaa inaan dhallinyaradeenna aan u ballan qaado iyadana wiilashaan kulligood geesiyaal waaye waa in darajaad la siiyaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato allahu akbar allahu akbar allahu akbar khawaarijtu ha jabto khawaarijtu ha jabto khawaarijtu ha jabto